بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. marka ugu horeysa kelimadan ku saabsan ee culimadu ay soo wada mareen arabkoodana ku soo dhufteen dilka iyo istagaalka iyo tafarruqan iyo qabaligan iyo asaasan maalintii nabi aadam aabaheen aadam abul bashar isaga iyo ummuna hawa ilaahay dhulku soo dajiyay waxaa la soo raacsiiyay bacdukum li bacdin adu qulna habitu minha jamiican bacdukum li bacdin adu wa xukm ilaahay oo jira weeye in iqtitaal uu jiro waana la socotaan oo labadii ugu horeysay ee isdilay ilma aadam bay ahaayeen waa iska soo socotay mar kastaba diinta ilaahay iyo ilaahay oo lagu xirmo iyo aakhiro oo la rumeeyo baa xal ahaan jirtay hadiya goor nabigeena kaleey salaatu wasalaam dadka loo soo diray dad lagu tilmaami karin iqtitaal dhexdooda uu dhaafay iyagii dhexdooda dad laga waaninayay aaba laga waaninayay oo laga hadlayay gabadhii uu dhalay ee fildatu kabidihi gabal yaro beerkiisa iyadoo soo jeeda inuu intuu god u qodo afgambi ugu tuuro oo aaso waxa la sheegaa marmarka qaarkii oo siyarka ku timid nin yaani ka sheekeynaya xaaladiisii hore ana gabadhayda god baan u qodayaa buu yiri iyaduna yaani garkayga ciida soo gaadhay bay iga masaxaysay markaasuu afgambi ugu tuuray dad noocaasa ayaa ilaahay u soo diray oo diinta ilaahay xal uga dhigay oo markii dambe dad noqday oo qaadat al-umam noqday oo isku mid noqday oo kal jasad al-waahid soo nabigu ku tilmaamay hal jasad kaliya noqday wa bidiin ilaahi way marka aanu malin kalimada meeshan yani ku wajahan ama aan ka mutaysan tahay ama dhageysanayno culimada hadalkooda waxa weeye waa hadalka aan ku celcelinayno oo ah xalku waa inaan ilaahay noqono waa inaan tooba keenno anu barihi xamar mar baan tagtagi jiray oo adigu 39 94 goor ahayd garan maayo meel airport waxa jiray xaggan daafeed iyo agtiisa lambar konton miyo ah yaan ka soo degnay koox badan baan ahayno multaqa dacwiya noo soconay iyo kulan diineed baan noo soconay culimadii aan wada soconay oo dhan markii aan afisyooni marayna baan ka waxaan aan xageen ku leexanay meel lagu tilmaamay tiirka la isku toogto ma taqaanay ma maqasheen dadkii Soomaali halkaas aan tagnay oo waxaan culimayo aynu tooba keenno waxaan u malaynayaa maalintii raggii shuhadada ahaa ilaahay dartiis loo dilay iyo diinta ilaahay oo istaageen caradii oo ilaahay maalinta carooday baa wali socoto isbedbedelaysa marka inaan horto ka tooba keenno sheekha wakiilaha kam wata 70 ma 70 iyo waligeed dagaal qabiil ma badhan baa waligiisba laakiin hadiya goor waxa xal u ah inaan ilaahay u tooba keenno rabbigaanu noqono oo diinteenu ay dhabnaga noqoto fardan wa jamaacatin wa umman in diintana ay dhabnaga noqoto macquul ma aha الله عليسن إن علي هبل إهشين ما بهشين كرامبا علوم الدعيسين ويجرتاي ويري إلهي وصومالي أنت أي أديك كبرنا يسوع والدين هذا وصل نقول يسوع دولة في عنها بس هنا ولا إلى حتى كنت عين إنسان أقنع وتاجن ورد أو تاج مركينا الإلهي ونقولنا ربنا سبحانه وتعالى وتوبكنا هذا الكي بان سيئت كينا يا علوم أي فعل عليين أو qof alla qofkii wax ka geysan kara inuu arinta horjoogsado waa meeshii ugu weyneyd waa kalimadii uu ku jihaadi lahaa fi sabiililaahi weeye dadka walaalahayna islaanay hal kala ilaaliyo insha Allah taala diintana aanu soo noqono waxa khayr ee halkan ka dhacay ee culimadu inoo sheegaysayna aynu isku dayno fardan wa jamaacatina inaan ku dhaqanno allahna waafaji insha Allah barakallahu